لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولا يرسل هذا مدني ومروين به ركينا ماشي سقيمت حفلة عن عاوة وأنو دقينو وزير كينا ولا كينا وزيرك هولها جود يجريينته إنجنير صالح شيخ عثمان موسى. إنجنير صالح تاريخ دي حقوق هدي أن وحير عن كتا تابتو وأنن ودقال لما قضية دقل مرفلة قضية دقل مرفلة muddo badan u soo bacbacdhigay wadamada qaarkoodna u soo seexday danta ay leedahay digil iyo marafle. marka mudane saalax waxaan ku ognahay qof firfircoon inuu yahay, qof dadkiisa jecel inuu yahay, qof deegaankiisa jecel inuu yahay ayaan ku ognahay. marka caawa xafladan waxaan u dhigaynaa asoo noogu yimid booqasho gaaban boqortooyada Sacuudi Arabiya, shirna uu ku lahaa caasimadda Riyaad. markii uu soo gabagabeeyey shirkiisa ayaan waxaan jeclaanay inaan u sameeyno xaflad sagootin ah. haddana aayadaha qur-aanka ayaa waxaa inoo akhrinay sheekh ملاغ يوسف عبد الرحمن. فتفضل ملاغ يوسف. انت اللي فيريا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. haddana الشركة ama xafladan waxaa inoo furaya gudoomiyaha beesha awdigil mudane Muxudiin Maxamed Cali. فلتفضل محدين. بسم الله الرحمن الرحيم. دمان انت كسو قيب قشي حفلة قايها ايو قيمها له ayaan soo dhaweynayaa marka ugu horeyso oo ka kala yimid magaalada Jidda ama boqortooyada Sacuudi Arabiya. marka waxaan rabaa inaan ka sheekeeyo ama aan soo dhaweeyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, injineer wasiirka howlaha guud ee iyo guriyeenta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya, injineer Saalax Sheekh Cusmaan Abdi Muuse, in aan ku soo dhaweyno maadaama uu noogu yimid booqasho magaalada Jidda sida ay u degan yihiin beelaha Digil iyo Marifle oo maanta mataqaana
aan usugu nimid caawa oo halkan aan isugu nimid si aan u soo dhaweyno xafladan oo caawa inta lagu dhigay isla markaana uu u ambixi doono waddanka Soomaaliya habeen dambe Ilaahay oo raali ka dhigo asagoo u yimid shaqo ku saabsan dawladda dhexe ee dawladda federaalka ee Soomaaliya. Engineer Saalax waa nin soo halgamay muddo dheer ma aha inta hadda asaga u shaqeynayay 40 sano oo ku tirsanaa dawladda dhexe ee Soomaaliya ma aha hase ahaatee ilaa 15 sano ayuu ka shaqeynayay sidii horumar ay u gaari lahaayeen beelaha Digil iyo Mirifle ama daga gobolada koonfureed sida gobolka Baay iyo Bakool iyo gobolka Shabeellaha Hoose. Marka waa taariikh aad iyo aad u dheer oo soo maray injineerka ma ahayn inta hadda asaga loo doortay ee dawladda oo u shaqeynayay kaliya oo ma aha waxyaabo badan ayuu u soo qabtay dhammaan beelaha koonfureed sida iskuulaad fara badan ayuu ku soo sameeyay gobolka Shabeellaha Hoose waxa kaloo hore uu soo qabtay dad aqoon ah oo meelal fara badan iyo waxbarasho ayuu u soo qabtay. Marka injineerka waxaan u rajaynaynaa mustaqbalka hadda kale oo soo socdo in uu sidaas si kale oo noo shaqeeyo anagana inaan garabkiisa galno oo soo dhaweyno mar alaale. marka dhammaan haddii aanu nahay anaga jaaliyadda ka soo jeeda beelaha Digil iyo Mirifle ama Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo asaga oo ku soo jeedo ayaan waxaan garanay in aan soo dhaweyno inta hadda caawa meeshaan fadhiso oo dhammaan oo kala gacaltooy ah aan ku soo dhaweyno si mataqaana asagana uu ogaado in mataqaana maanta ay dadka maqan ama dad ay u joogaan garabkiisa ay u joogaan wadamada sida hadda mataqaana boqortooyada Saudi Arabia sida hadda asaga oo caawa ku arkay. marka insha Allah waxaan rajaynayaa inta kale hadda iga dambeeyso ayagana in sidaas si kale ay u soo dhaweeyaan. wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. gudoomiyaha Awdigil aad iyo aad u mahadsan yahay. haddana waxaan soo dhaweynaynaa suldaanada ka mid ah suldaanada beesha Galadi سلطان علي حسين حاجي فلتفضل. على إحسانه والشكر له على توفيقه وابتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وحن كان كسلامي أنا وكهذا الله مقع سلطانك أما وكيل كسلطانك قارة أفريقيا قارة آسيا ما غينس أيو علي حسن حاجي. waxaan kan salaamay dhamaan marti sharafta ka soo qayb gashay soo dhaweynta wasiirkayno injineer Saalax Sheekh Usmaan Muuse. dhamaantiin aad taasan maasantiin waxaan sidoo kale aan mahad celiyay dadkii iska dabaridi inay soo abaabulaan xafladan sharafta leh oo la soo dhawaaya wasiirkayno. marka insha Allah kulay aad taasan maasantiin dhamaantiinba wasiirkan waxaan lana walbadan soo shaqeeyay kulay dadkii u horeeyay oo ka hadleen. marka haddana waxaan ka rajaynayaa mustaqbalka cusub in insha Allah asniin toonado hooshis wadi asii dhameystiro insha Allah. marka isina waxaan si garajooynayaa in isla shaqeeytaan wasiirka hal qof kaliya wala qabado koroma leh. marka insha Allah si Soomaaliland aanu ilaahay waxaan ka rajooynayaa Soomaaliland dib ka badadi. marka tan cusub insha Allah ilaahay tawfiiqna waafajiyo madaxweynihii Soomaaliya oo samatabiilahay oo dibkaan Soomaaliya oo ka badadi ki korqaad leh in ilaahay sheeno isla markaan dadka kala shaqeeyo dad oo faylan ilaahay ka dhigo. marka insha Allah dhamaantaano qalbigaano iyo uurkaana iskin furan halka dhigneena. marka inaan warka si dheeraadana xogaa mar dad kale oo si dambooye. marka waxaan balan midnimo iyo alla ka cabsi. assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. حسن أبو نور فلتفضل حسن أبو نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان وحا سلامية علماء دينك أخيارته حاوينك دلنيارده دمان تين سلامنتا مركورة
salaan kadib waxaa soo dhoweeyoyne wasiirkayni injineer saalax sheekh cismaan soo dhawaaw jidda ku soo dhawaaw injineer waxaa ku soo dhowaadaase dadkaa oo macnaa ku noolaaya mamlakada ku soo dhawaaw injineer waqti badan iyo ku sugayni noo soo dayti gabgabadle inaanin koyt ma ahayne maalintii laka doolar ba ku sugayni ka xisaabadayni ninka koow unu xisaawayni iyo ahayti kheer haddana waxa waaye waxaa kin rajeeyaane maqaam caali iyo kin rajeeyaane oo ilaahay agtiis jiro oona idnuu ogayna iyo kin rajeeyaane inaa ad macnaa maqaamkaas ilaahay ka daarsiiyo waxaa kale ani macnaa maalan ilaahay ku tuugaanee dhammaantaynaba dadkan koonfur galbeed la dhahaw in ilaahay qalbijoo nistumo waaway qalbijoo aadaan shal faraagsanya wabaan qalbijoo ilaahay inisheen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu suldaanka awdigile aad iyo aad ugu mahadsan yahay haddana waxaan meesha aan ku soo dhaweynaynaa guddoomiyaha beesha geladi mudane axmed cabdiraxmaan yuusuf بسم الله والصلاة والسلام من لا نبي بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka inta kasoo kulmay xafladan howka odayaalka iyo gabdhooga siin salaame maasha Allah tabaarakallah wasiirkaynu wasiir injineer Saalax Sheekh Usmaan Muuse wasiirka howlaha guud iyo guryeenta maasha Allah si horab aan sheegay waxaan sugaani waqtigii la dooraday inaan soo ziyaarado ni soo daay aadaan ku xuna kulli hadana dhif mala war kasta waqtigiis dhamaadee wasiir waxaan kaliya dadka waan kan soo dhawaaw jaaliyada jidda insha Allah mustaqbalka khayrankiin rajooyaane wax badan isnin qabati oo la taabad karo adduunyo badan qabati wixii dhiman ku sugan insha Allah gorobka Ilaahay galan kalena halkaas qaadan Ilaahay gorobka ha galo mustaqbalkana khayr iyo barwaaqin rajooyaan insha Allah markastaba adinka sugu hayaan insha Allah assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh guddoomiyaha aad iyo aad iyo mahadsan haddana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha beesha biimaal mudane awees macalin hello macow السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأن إذن سلام يا وحان إذن سلام يا سلامة إسلامك أن odayaasha dhalinyarada salaadiinta xafladan ka soo qayb gashay waxaan idin leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan kaloo rabaa inaan dadka horteyda soo dhoweeyey ku raaco walaalkayna wasiirka injineer Saalax waxaan ku leeyahay walaalkay soo dhawow mar labaad mar saddexaad soo dhawow dadkan waa dadkaadii ood wasiirka u ahayd nuuc walba ha ahaadeen gobol kastaba ha ka soo jeedeen wasiirkii matalaaya waaye waxay xaq u leeyihiin inay ku soo dhoweeyaan waxay cabasho ah oo dareenkooda ahna inay kuu soo bandhigaan inta ku anfacdana inaad ka qaadato intaad kuu qaadma weysana meeshadaad ugu tagto annaga waxaana la yidhaahdaa reer koonfur galbeed khaasatan anugu waxaan ka soo jeednaa shabeelaha hoose reer shabeelaha hoose ama reer koonfur galbeed waxaa lagu yaqaanaa dawlad jecel
soo dhoweyn laakiin waxaad mooddaa waayahan inaan ka caajisnay khaasatan annaga haddaan hoos u dadego biimaal ahaan waan ka caajisnay waayahan laakiin adiga hore kuma arkin tijaabo ayaad noo tahay waxaan ognahay gasar ku yaal magaaladan jidda oon wasiir ku soo dhowaynin oo ka soo jeedo shabeelaha hoose waa yar yahay marka waayahan waan ka caajisnay ayagaana badiday marka la leeyahay koonfur galbeed way ballaaran tahay reer shabeelaha hoose aan ku hadlaa aniga biimaal baan ahay shabeelaha hoose ayaan ka hadlaa qayb anigu aan ka deganahay walaalahayga inta joogo degel iyo mirifle nuuc walba ahaadeen shabeelaha hoose dhibaatada ka jirto waa la og yahay dhibaatadaasna waxaana beday sida aniga aragtidayna ah hoggaankayna oo ah ummad waxaa hoggaamiso ama jihayso siyaasiyiintooda dhaqankooda marka waxaan leeyahay koonfur galbeed siyaasiyiin uguma jeedno dhaqanna uguma jeedno shabeelaha hoose iska daaba waad maqlaysiin dadka ka yimid gobollada dhexe inay u doodayeen beerihii shabeelaha hoose laho waanu lagu dilay ma aragno hal siyaasi ama hal dhaqan ugu jibaabo ma aragno annagoo qurbi joog ayaa meelahan ka qaylino marka su'aalaha ceenkaas ah walaalkay injineer saalax maanta adaa noo mithelo koonfur galbeed walow aadan ka tirsaneen wax ka weyn baad ka tirsan tahay federaalkii baad ka tirsan tahay sababaha ay ku qabteen ma aqaan ummaddan koonfur galbeed ilaa iyo hadda ma garanayno dawladdan oo la sheegaayo oo macnaha saddex gobolood aan weli madaxweyne ku xigeen lahayn wasiir aan lahayn wasiiradooda qaar yar oo macnaha dareystayaal ay taa ma naqaan marka nasiib daro ayaan ku sugnaay haddii aan nahay reer koonfur galbeed khaasatan shabeelaha hoose dadka ka soo jeedo aad baan u gocanaynaa waad maqlaysaan wasiir baad tihiin xildhibaano baad tihiin siyaasiyiin baad tihiin suldaano baa jiro waxa dhacaya shabeelaha hoose ka dhacay waa ujeedin marka tii lagu dhigay waa ogteen eber dakan way maanta waxay taagan tahay afgooye wixii loogu aamusan yahay anugu ma garanayo shalay miyay ahayd idaraad baa gabar baa lagu dilay baa layidhi 20 kun baa loo dilay oday dhaqameed beertiisa joogaa la dilay marka ma garanayno siyaasiyiintiina waxa aad meesha noogu mithashaan walaalkay adigoona aan xumaan u qaadanayn laakiin dhaliilaa aniga aan dareemayo waaye haddii wax kale jiraan waa la iga jawaabi karaa marka dhibaato ayaa na saaran reer koonfur galbeed haddii aan nahay waxyaabahan yaryarka ah anagu dhexdeena ku mashquulsannahay ha laga baxo koonfur galbeed maana cidna kala goynaysa male ama digil ahaw ama mirifle ahaw ama biimaal ahaw ama nuuc kale ahaw marka walaalayaal waxaan idin leenahay gacmaha iska qabsano ha isfiirino inta qaaylis waa inta qurbi joogta annaga waxaan ku shaqaynaa xaqiiqada markaa rabto shabeelaha hoose jaaliyad tiraahdo ma jirto caawa duruufaa igu kalifinaa biimaal baa ahan yidhahdo jaaliyadda gobolka shabeelaha hoose baan ku hadalnaa magac kale kuma hadalno idaacadahan wax badan waadna maqasheen gelida ha noqdo biimaal ha noqdo nuuc walba ha noqdo marka waxaa idin leenahay walaalahayna wakhti gabaabsi baa la joogaa wixii nugu dhacay waa nugu dhacay siyaasiyiinteenna na hoggaaminayo waxaan idin leenahay aynu raxman ku fiiriya koonfur galbeed khaasatan shabeelaha hoose koonfur galbeed dhan baan waxba ka jirinba khaasatan shabeelaha hoose waaba la qaataad mooddaa marka haddii wasiir ay noo fadhiyaan meesha oo xildhibaano noo fadhiyaan oo siyaasiyiin noo fadhiyaan oo oday dhaqameed ay noo fadhiyaan oo mid ka hadlaaya aysan lahayn nin iyo labo aayihii koonfur galbeed dhan ay qaateen aad iyo aad baan ugu xugnahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu iga raali noqda mudane awaas aad iyo aad u mahadsan yahay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha beesha eelay saddex gambad iyo masheekhdooda mudane cabdiyow nuurow xaaji cabdiyow inaayow
بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أخيارت odayaasha dhallinyarada ulmaa-udiinka haweenka ma'al wasiirkan injineer saalax sheekh cusmaan muuse marka salaame 140 quraan kariimka markii salaanta aan meelasan ka baho wasiir ha dhawaaw ardada muqaddaska ha ku dhawaaw beedka ilaahay ha ku dhawaaw ehelkaana ha ku dhawaaw markii ka dhawaashada meelaan aan ka baha injineer saalax lan eedgiisin ew usoo walban hayniya umatun hadalay laakiin mayliyaa bana markiis walnagdi hadalkii yaraa ama fadiilo hoose ilka gaabay bay galiba habeen maalin barnaamijyada dood wadaag aanu ka arag jirnay umatun hadalaw laakiin hadda ma arqoyn ma jirtee umataana odayaalkan walnin sheegana jiran may bana areena se duwala se dibilayan haddii ka badadaanna bi'iyaayan qabiil sheegay shibile haddii ka badadoona bi'iyatan haddana haysatuwo geed saar bile hoosa hanunka biye laakiin haddiiba ka badan dhulka jeeye hunguro osba bilaas haddii ka bada sanaqdaasa mal aamo kor dad may bahayna daras wanaagle dimuqraadiye ee dadka eedan dhawahayaw laakiin oo ku kooy wiliba may ka jira meel ka dhaka jiray hel dhawaanga la ka dhaka jiray wasiir la ka dhaka jiray si ummadoo leen hogaami ma baka sajarnaba marka may ni qobsatay hinni bii hadda man ni ka dagaalme inni meel kala banini eeda walaagi oo nato geedagi saarka ka barday oo bi'iyay oo kala osboodi hungurigi bi'iyaasi oo kala ama qabiilkii sheegashada bi'iyay oo kale inay haysad aw wasiir hanu geesahayti ano hadda oo idna kiinjeel waana saaxiibkayna ata halgenkii adi wadi wad lama lab si umatan dhibaatadan ka bata laakiin ma ka falaniidi inaad garaban hal tiide kamay baaqan dire dadka hel dhabaanada oo beelaha digil in mirafle hadda laan holi ineenka doorsan kursiga lahayn holi beesada qaadada laakiin lankii mutaysanin doorada beesada la siisiyooy lanka siisiyooy jeebsha ma beesada uu iska leh qaadada laakiin may siin ku osadaane oo osad la maadna ka dare lanka wadanka ama hogaamiye koro isan laatiin soodkiisa ilaahayna ku obsada may kale si jirtee may badna are baarlamaanka shacabka Soomaaliyeed haddii uuna matalaw shacabkii uuna baldaamo uuna ku koyni bi ibad had miyaalan lan maalinta hel dhabaanay oo shacabku aniga ka jeedi oo saaro hadalaw ma arag may siin ku osadaane hunguri mini deeji kortana biileynisiya tiidiya kala hadhow Saalax Cusmaan Muuse wasiirka gaadiidka wasiirka howlaha guud adan may ko sugaane maadaama lakiin dhiki dibudhiska wadanka afgo iyo tamar atel laamini sar wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh abdiyo aad ma hasiyo haddana waxaan ku soo dhaweynaa guddoomiyada beesha Galadi حليمة موسى تفضل ما شيء ما هذا ما شيء بيكو فضل ده انت تكتوسني ما
والإنش ودناي ببودو يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام انت روكت ولا علي انت بقولت مي أفرتك سلام انت وهان سلامي ولا الكي مرنا وسير كاينو شيء صالح شيء اسمه موسى سلام انت بقولت مي أفرت لنعاو يدافع باي فاي سلام انت او سيرو انا ولي جيت كان مكورانgne hada wal isoroji ali kawlan ay raalina hada aw soo dhawaaw jaaliyada guud oo jidda ka soo dhawaaw ya maanka dare jaaliyada jidda ka soo dhawaaw aw wasiirkayno soo dhaw un keek laan ana waligaan dadka geed qaar lan gagaliyaa diyaar ka soo dagayaan soo waxa ayo soo dhaw laan araga jirni geeg un koob inaan ata hadda ilaahay guul ana siiyo maka saana tiim bilaawata guushinin bilaawata Allah ka dhigo ilaahay garbka Allah galo waligaan meeshan maroogsan alxamdulillah ilaahay mahadiis waay tanba mahadoo waay onka waramo hayno walaalkay adoo madaxan ahayna meel aan ahayna wal qabati hadda wal qabashada hadda wala rabo hadalka arago Soomaali dhan walan qabo guul Allah ka siiyo aan habad maay wariya koy marka in soo bifay maday ani oo dhumi dhana ho hay أنا بسأل إيه ولا أسمع صورت دايل هذا صورا أنا مرة بيه أنت ها صورا قالوا قمار وفوله قالوا دي جيس يا قالوا جيس كلمات قرك أو جنجله قرار تبع مو ماي جدولي مقارشو قبك أو جدو قرار كأو بكرة مو سجد غير علي كله مرا قبي أنت دايسو كنت قشي ما قالوا دي يا قان تلوينه هر قبيب محمد هر على جودو محمد قد قدود كأوي كروسان قبت لما جيل بلا هر قال يرو يربو هر أو قرقوي صديق قولوا وكشاني قاوا واجي يوسف قرار كيدك قلاوي قمار وفول قاوا واجي أدي قصيرنا وقابل قلاوي قمار وفوله هاجي قصيرنا قابل قلاوي قمار وفوله هاجي قنبايسنا قابل قلاوي قمار وفوله قاوا واجي قنبايسنا قلاوي قمار وفوله يا ري ويرتا ولا وريري واقلي يا وربوري هذه وقتها ويرتا لا إلى ولا يا وربوري ويرتا لا إلى ولا لما نمرنكي سلامي السلام عليكم صالح الشيخ ولا الكاي بقول تمني أفرت أود كي هوتيل مكوين صدق سنة نروي مع السلامة ما بخاط خطبت يا أبد معايا مالي دوبنا وتكفوا أي حليم موسى هذه ومحسن تاي هذا نوعان ماشى عم بسوي دويننا قدوم الكوعيجان باشا جلدي مدن عبد الفتاح عبد الله فلتفضل بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين سلامي سي سندنتين انتي ما انت مشان كسو قيب قشي آتي أتسان محسنتين انتي برنامج كان أواوشنا آتي أتين محسنين waxaan kasoo dhawaayay maanta xafladan oo khiirada leh oo marka aan soo koobo kornay farxaday injineer Salah injineeraha guud federaalka kasoo dhawaaw injineer Salah waxa waaye qof taariikh leh oo taariikhdiisna lan soo koobo kornay waa qofka kali oo sheega karo meeshas ka soo jeedo taariikhka sheegaaw waa qof mudan in la faafaaliyo injineer Salah waxa waaye soohinta oo
meesha u sikakooy maskale meesha u salang magacaawaw qofka kali sheego karo taariikhda galadii iyo biimaal oo hadeertan ay rabaan dadkan hadda soo baxeen inay damiraan qofka kali sheego karo u si waaya waa qof mudan in la faafaaliyo laakiin aad iyo aad anaga xuma waxaan ka soo jeeday shabeelaha hoose gudoomiye ku-xigeenka jaaliyadda jidda ee beesha galadii injineerka maanta waxaana sheegaya inkastoo ka soo jeedo dhanka oo federaalka oo dowladani ata oona rabo hadeertan anaanan sheego dadkan hadeertan oo adeedii qaxanin ka kooyeen oon fadhiga siine oonu soo dhawaysani oo haddana ni leh dadkan haddii noo haro waayaan diintou sheegaase inaan iska dhicino oona ni leh oo dhulkaanana ni leh oonan naqabada korne oona ixtiraamno dad oo la kasaaw ixtiraam mudan oo dagaal alku ogaayna dagaal wixiis aya iyo wixiis galaa wixiis guda hor aan soo arageen anas faa'iido basan lahayn oo hadda rabaan dagaal oo ka aawudaan degmada Afgooye inaan naqabada doonne niman wiibiin odayaal laga sheego dad wiibiin hadeertan lugta gud aan soo jeedo anay soo fadhiistaan ay dhahan dhulkaano iyo maaladhe hoolaagaano iyo waxa kaan aan badbaas hool maashay meesha aan yaalan ileeyni lehe anaan boo adaadan seed yaaq ma dhax koro yaaq hoolaaga ilmooga aan dhiisade ma dhax koro waa shay oo aan baahan yaani maskaxda in laga shaqeysiyo ani sheeni fadhiisi dhul ansi amaan gali iyo korweeshadi degmada Afgooy waaye meeshiska kooy kasee maana meesha lee u si hadho maana ani dhulkay waxa ka badbeeside shabeelaha hoos oo dhayn dadka deegaan iska saayaan wal iska see dhulkooska kooy dhagaxaska kooy maraw meesha ani ilaahay uu leh runta in sheega isagna uu ninka jirtaan meesha tiidiya kale engineer Saala waxaan kiin sheegay federaal la dhihi kan degmada Afgooy aan degaane waxaan jecelnaa oni hadii ana beesha galadii أنا واحد من كي قرن بيش جلدي وحرمنا كعيدا كي كمامول كي إن فراغ الإنجليو أنا اسماموله وحان أنت كعداية حديث حد صار وايان دت كان حتى أمانك كي عطى يوم القيامة أديلك ورنسية كان حد مدهوين إن وحصلتا لواتن إسرائيل ولا نسوقوري ما لده وسي عيدا دك مد أفجوي لواتن إيشان هور قدير واي أفر جلدي واي لأن أفرت هور قدير كديك أني صوت دجي ميلانسي لكن لواتي شان مركز كديكتو هور قدير إيه الله بلدك أنا ما بليه كويت لنا هذا marka taasna marka anaan ka badheeraado waa inaan jecel marka anaan ka dheeraadana ma jeceli walaaloogaana irsho ilaa iskurugo injineerka xumaagna nin fahanto nin wax qabad leh waata waligaan wax qabada jirti nin taariikhda ka hadala oo meeshas ka soo jeedabo adii ilaa iska dhigi hadeertana macna warkiina anaan ka dheeraado ma jeceli alooshay buuti anaan fufuro ma rabi laakiin halaagan waxa waa ixtiraam iyo soo dhaweynta waay aad samaxatu assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gudoomiye ku-xigeenka aad iyo aad u mahadsan yahay haddana meeshan waxaan ku soo dhaweynayaa nabada naasl nuugle nabada naasl nuugle mustaf sheekh abwaankeen mustaf sheekh oo waayeel noqday أبوان مصطفى صدوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليالو فرح وين فرحة ما جرى ما يسين كويي دتكي دولة نمدا أصلك إن لهاي أو لكساي بروفيسور أمور ولا شيء ولا كم بروفيسور أمور ولا شيء ay ahayti intee ku koyti langna ma dhahaw dadka kalena ogyiin meel walba lagu ogyiin professor umar walaal shay mar hadii soo ayaa inta kortiye ayaa may soo biyay gabayl dhahaw hees ano Itoobiya jooga Addis Ababa nago rogo oo hey ya Allah ya ahlay
maraaye waana miiraay weligay madigay ma dhuuriine murta wabay shabeello keena moobil hoostiis masafkii abwaankii mustafjeegerahayen maganaayo hoostiis murtidii kusheeni meelaasiinki sheegay ohey ohey yaalehyaaheley haddii haaje madal iyo meeliniiski kooyo magma aboobay maqma aboogay murtida ku sheegee maqanaanta tiitay dadka meelo roogaan mahino mudaayaan ismaan dhaafka geeraad shir mujaahideedkii manifesto roogti maqanaay kii ermaaba tirsanayna intii meelo roogti markhaati furaayaan waana shay muhiim ah mabda' leenku biringne magaarsaal an hayne ditoorkii maqaashay adduunyada mas'aladiis macruufkii haaye barfasoor umuraa meelo roogi walaalyaal salaamintiin waya xaqiiqo eh inay kastaan dadkiin aahaarta ah oo geegga siinqabada kor inay kastaan oo isan geegga xafladun qabateen aad iyo yani siinka hambalyooye ilaahaygii siinka siiyi way waahe may jirtee meelayno inta kortiya waa gabdhoogo meelan martiyan oo ralla ahaadaha meelan martiyan iyo maylisiyay jiilaala haytay garooradhin ku saare onkooyeena marka dadkii garootidhin ku saare may dhatay garoorayla siinsiyay raalla ahaadal dhehe too aad an fudfudud may dhatay una idayna garoortiba markii roogta shibdheh nin eeboy too shibnoo dhawaldheh una idayna garoortiba dhibliinku qabe wadi una idayna garoortiba markii roogta shibdheh yaldheh waysin sheegaye waysin sheegaye waya walba alhaysine dad wal fahmaaw oo yani gaaga dad soo kasaaw walaagii aahaar an kasaaw iyo alhaysini haddii intuunba kasteen alxamdulilah ana siinka mahdiya yani siinka hambalyooye horaaliba dadka kiini ka hen hadda gudaha iyo dibadda ku ka hen way an ka hena xaquuqdiyo inigu diisidaan an ka hen lankii wasiire iyo lankii maaragtay walbudun oo meelo ka jiro baarlamaanka ka jiro haddii usa kaha waayo dad shay walan qabada waayo matoorka digil iyo mirifle ama koonfur galbeed matoor sheekihii dadka indhaladay koonfur galbeed dhammaantiyoo ka hen inay xaquuqdiyo on harbiyaan inay lankii walba inin taraana isku reebaan iyaa ka tala galeen walaalyaal anagoo hadalka insiinka badiyaan maya meeluun yaale dhibaatooyinka geegga unulayna haysadaan sidliin yani dadkayna sidliin liidow haddii ana ka tuso yani injineer saalax way waahe lan dawladda soo dirsiti oo maaragtay shir dawladeed onkooyi markii us onkooyina ilaa al'aana mahayno wal dawlad ah oo agtiis roogo laakiinse unu dawladiis ee unu dadkayna iyo dadkayna min bahan waardiyaashay unuwa askartiis unuwa unu waardiyeeyaan unu meeljaysidaane unu garabka saaradaane ma in daliil tan oo ka dhiidiyaan daliil oo hadda sidan marka saas daraadiye injineer soo dhawow jidda sacuudi arabiya ka dhawow una inta ka noolna isin meel roogteen maylin bahanya ini jidnin fallaan meel unu ka koyno ini suu bilaan lin bahanya dhilin yarada iyo dadkii odayaasha ahaa lankii hadayay hadalay oo reer biimal hadalay hadalay ini wal ku qabato iyo lin bahanya aad iyo aad يعني لينك قيرود إتا إيو لانكي كالي داد كاينا حدا كهان لكي سكهوكي ما ينباهنين إن لكال ما ينباهنين وارك مسيبا دياو ويا سلام انتون كدرايا داد كشريركو كوغدو مقدشو او جيجا يعني اقون يهان كادن يرده مراق يده او حقوق ديون دودايان يا انتو كسلامي way ku salaamay dadkii istaad man faracay isku jeedi oo hadda ka heenga jiraan hadda ku baad sidii hor leh oo hada doonle istaad usman dadkii ka abtir siday iyo dadkii faracay isku jeedi iyo ka heen marka saas daraadiye meelisan galahaytan oo xuquuqdayna kala dhuumudahaytan iyo la soo ku faday assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh abu mustafa aad u mahadsan yahay haddana waxaan ku soo dhaweynayaa guddoomiyaha qurba joogta beesha galadi mudane cabdulaahi cumar maxamed fadal cabdulaahi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مرشرفك ورك هوينك أخويانك oo halkan ka soo qayb galay dhammaan walaalaha soo dhaweynta maanta oo loo sameeyay wasiirka howlaha guud injineer Saalax Sheekh Usmaan Muuse walaalayaal ma sha Allah tabarakallah maanta waxa muujiseen maanta muwaadinimada iyo halganka iyo Soomaali jaceelka oo niga muuqato iyo sida ay u qiimeynaysiin dawladda iyo sharafta u leedihiin ikraamada ay haysiin madaxda oo naga tirsan oo hadaan nahay Soomaaliya marka waxaan leenahay wasiir soo dhawaaw waa kuwan dadkaagi iyo jaalidaadi qurba joogta ah waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaaw ilaahay samasame iyo salaaman ha kugu geeyo wax kale maanta aan sheegayno ma lahan waayo meeshan waxaan leenahay meeshan waxaan kugu casuunay cashi sharaf iyo casuumad aan ku sameynay marka cashi sharaftaas iyo casuumadaas inaan kugu aragno oo kugu soo sabootino aan kugu soo dhaweyno aan kulano marka halhaas waxay noo tahay maanta farxad waayo muddo dhow managu dambeeyeen anaga inaan la kulanno wasiiro iyo madax ka socoto oo dawladda federaalka oo ka tirsan oo maanta ka soo jeedo gobolka Koonfur Galbeed maanta waxaan leenahay taas ayaa inoo farxad ah hadalkana ma sii badinaayo waqti badan ayaa meeshan waqtiga ma haysano aan ka sii baxay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waa mahadsantihiin haddana waxaan ku soo dhaweynaynaa المعالي الوزير انجينير صالح شيخ عثمان موسى تفضل انجينير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaa sharaf weyn ah martidan qaaliga ah salaadiinta abwaaniinta hooyooyinka dhalinyarada mashaayikhta oo maanta halkan igu soo dhaweeyay aad baan ugu mahadcelinayaa tan kale waxa weeye horta inay ogaataan dawladdu waxa shacabka iyo dawladda haddana markaan fiirino annaga meesha aan ka nimid ummadda aan ka nimid waa ummad dhaqan ahaan u leh maamul wanaagga aan isweydiin horta annaga yaan nahay horta yaa way Soomaaliya halkeen ka nimid yaan ahayn gumaysigii Talyaani intuus imaan ka hor annaga waxaan ahayn dawlad waxaan ahayn dad waxa maamulo waxaan ahayn dadka diinta faafiyo ahna ilaaqaadka maanta dawladda federaalka ay ku faanayso waxa ilaaqaadka awowyaalkeen ay la sameeyeen waa Turkiga waxaan ahayn dad wax soo saarka ku dheeray waxaan ahayn ummad jecel nabadda jecel waxaan ahayn ummad ku dheer maamul wanaagga ummad karaamadaas iyo sharaftaas leh yaan waana idinka muuqata dadka halkan ka yimid karaamadaas inay dhaqankaas anaga leh waan ku mahadsantiin markaan soo laabdo aniga waxaan imid shir ahna wasiirada howlaha guud ee Arabta ay ka soo qayb galeen waxaan laga hadlayaa waa wax qabad waxaan ku ballansanahay in Soomaali aan dhisno waxaan lagu ballamay shir weyn lagu qaban doono Morocco in la isugu yimaado si loogu hadlo dib u dhiska Soomaaliya markaan soo laabano markaas waxqabadka dawladda iyo waxqabadka aan damacsannahay mustaqbalka soo socdo wasaaradda howlaha guud waxay jannaay wixii ka bilowdo waxay bilaabi doontaa dib u dhiska Soomaaliya oo idil waayo markaan imaanay wasaaradda aniga waxay leed waa 3 qol ay ku shaqeynayso haddana may ka shaqeeyo waxay tahay konton ilama xafiis aan 3 dabaq aan dayactiri ay wasaaradda ay leedahay taasna waxay ku tusinaysaa waxqabadka dawladda ahna in hiskaa waxqabso lagu dhiso aan lagu tiirsanaanin dad shisheeya waayo adiga wax qabsan karto wadanka adaa burburi adaana dhisan kara waxa kaloo idinku bishaareena 2017
tobantodoba waxaa la dhisi doonaa jididka oo idil waxaa laga bilaabaa kan ka bilowda hamar ilaa afgooy hamar ilaa baydhabo hamar ilaa kismaayo hamar ilaa gaalkacyo ilaa boosaaso gobolada oo idil wadamada soomaaliya oo idil dibudhiskeeda waa bilaabanaya taas waxay ku tusinaysaa 2 sanaan joognay 2 sano waxaan qabanay wax u dhigma 10 sano taas waxay ku tusinaysaa ahna in wax qabadka aan u soo jeesanay ay ku tusinaysaa teeda kale Soomaaliya waxay u baahan tahay cadaalad haddaan cadaalad la helin nabad lama helayo dawladuna waxay xoog saaraysaa cadaalad inay soo celiso gobolka Shabeellaha Hoosena waan la soconaa dhibaatada ka tagan wax badanna waan ka hadalnay federaalka macnihiis waxa waaye in xukunka hoos loo daadiyo waa xaq ummad kasta inay ismaamusho waa xaq degmo kasta inay ismaamusho dawladana awood ay saari doontaa in ummad kasta meesha ay joogto inay maamusho ay awood saari doontaa waayo haddii aan saas la helina midnimada Soomaaliya waa adkaanaysaa waxaan aniga idinku bishaareynaa aan idinku bishaaray haddaan sii joogno in cadaalad la helayo cadaalad la'aanteeda nabad lama helayo waan ku mahadsantiin soo dhaweynta soo dhaweyseen aadna ugu faraxsanay waana idinku faanaya teeda kale dawladda waa shacabka dawladda idinka waan ku faraxsanay billahi tawfiiq salaamu calaykum wa rahmatullahi سعيد صديق ayaa wuxuu rabaa inuu su'aal weydiiyo wasiirka تفضل سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن وزير adoo mahadsan horta markuu horeys waxaan ku leeyahay ku soo dhawow jaaliyadaadii Soomaaliyeed magaaladan Jidda waxaan aad ugu faraxsanahay booqashada noogu timid si gaar ahaan waliba adoo shirkaaga ka soo baxay oo soo dhameystay Riyaad haddana jaaliyadii aad kula kulantay caawa magaaladan Jidda farxad weyn bay noo tahay waxaan ku leeyahay ku soo dhawow gacmo furan iyo qalbi furan iyo niyad same insha Allah inta ka bacdi maadaama aad ka socotid wasiirkii howlaha guud iyo guryeenta dawladda federaalka Soomaaliya aadna tahay mas'uulkii runtii wax badan ayaan doonay inaan su'aalahaas aan weydiiyo nin ka socda dawladda federaalka ah Soomaaliya nasiib wanaag adaan ku helay caawa waxaan rabaa inaad iga jawaabto 2 su'aaladood oo aan qabo su'aalahaas oo kala ah mudan wasiir waxaad og tahay dawladdan federaalka ah Soomaaliya oo hadda nidaamka ay qaadatay federaalka micnihiisa ani la hadba garala ah sababtoo ah waxaan aragnaa dawladaha jaarka midna Ethiopia Kenya dawladaha Imaaraadka dawladaha reer Yurub federaalka waxa ah dawladda dhexe ayaa wax walba matasha marka waxaan aragnaa maamul kasta oo dawladdan federaalka ka tirsan inuu sheegto magac dawladeed markuu hadlayo oo leeyahay dawladda matalan ka soo qaad dawladda Jubbaland dawladda Galmudug dawladda Puntland marka micnahaas ani ma garan federaalka aniga aan haysano muxuu yahay koow su'aashaasi waa tay ugu horeysa su'aasha labaad waxa weeye mudane wasiir adoo mahadsan qarannimada Soomaaliya amba wadan waliba oo qarannimadiisa astaan waxa waa 3 shay waxa ugu horeysa xuduudaha Soomaaliya waxaan aragnaa inay ay waxba aan ka jirin oo ay iska faadi yihiin tan kale waa calanka gobol walba calan buu surtay calankii jamhuuriyadda federaalka amba calankii oo 5 xidigna waxaad aragtaa inuu calan kale oo hoos yaala waliba inuu hataa lagu dul mariyo ayaa arki jirnay laakiin waaba hoos yaalaaba micnahaasu waa garala ahay waana astaantii labaad tii ugu weyneed way waliba oo qaran uu yeesho astaan saddexaadna waxay ahayd lacagta shilin Soomaali waxa ugu dambeeya kun wasiiradii iyo xukuumadii qorshaha ugu jira inay calan saddexdaas shay oo qarannimadii ummadda Soomaaliyeed inay wax ka qabtaan maxaase loo laayahay shilin Soomaali in la soo sameeyo wadankan oo qarankan Soomaaliyeed oo loogu dul wadaa doolarka adoo mahadsan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khudbadii way ku jirtay maanaha federaalka
federaalka macnihiisu waxaa waye in xukunka hoos loo daadihiyo waa waxaan ka nimid 25 sano oo burbur ah waxaa joognay waxaa la arkay in oday dhaqameed wax soo xulay kow walaga gudbi waxaa la yidhi 52 qof waa soo xulaysa laba waxaa la gaari doonaa cod qofkiiba cod waxaa la gaari doonaa one man one vote waa la gaari doonaa taas yay ku sii socotaa horta isbedelka Soomaaliya meesha waxa kasta dastuurka ay ku qeexan yihiin weli waxaan ku jirnaa bilow federaalka bilow waay ma garat federaalka bilow waay ulijiyada la gaari doono waa taas waay taasna dastuurka laga fiirina wixii dastuurka khuseeyo ayaan ku sii soconaynaa su-aasha kale waxaa waaye haddii 25 sano burbur lagu jira ma burburin keliya dhismayaasha dowladda waxaa burburtay dadka maskaxdooda iyo burburay dadka maskaxdooda koo in la dhiso way say u fahmaan waxa la yiraahdo wadannimadu waxay tahay say u fahmaan way anaga iskoolaadkan burburin yaa burburi Soomaaliya burburis isbitaalkii waa la burburi yaa burburi Soomaaliya burburis markaas maxaa loo baahan yahay in la helo dad jecel wadankooda in la helo waay tan kale waxaa waye dowladda macallin ah dowladda ayaa dadka inay tusiso nidaamka ana cadaaladda ah waxaan ku dadaali doonaa insha Allah waxaas inaan bedelno tan kale waxaa waye laaqtan waxaan ku 25 sano burbur socod dowladdan waa ku taljirtay in laaqtay dowladda oo la soo saaro waxaan rajeynayaa 2017 laaqta dowladda inay bilowdo ilaahay idinkiisa bilaay tawfiiq xafladan aan ugu talagalnay injineer Saalax caawa halkan inoo egtahay waa inoo waqti kale oo xiiso leh. Assalaamu calaykum wa calaykum assalaam.